maanta oo kale adduunka bulshada waxaa lagu wacyigeliyaa xanuunka loo yaqaano cagaarshowga af Soomaaliga ama loo yaqaano hepatitis-ka. Hepatitis-ka ilaa 5 qaybood ayuu u baxayaa: A, B, C, D iyo E. Waxa ugu daran waa hepatitis C-ga iyo hepatitis B-ga. Calaamadaha iyo sida loo daaweeyo iyo wixii la halmaala caafimaadka dhakhaatiirta ayaa aad uga hadashay dhan kasta ha ahaato. laakiin aniga waxaan rabay inaan xooga saaro dhalinyarta in ay ka taxadiraan sida uu ku faafo xanuunadan oo loo yaqaan hepatitis-ka noocyadiisa kala duwan. aan ka bilaabo cuntada aad cunaysid nadaafadeeda ka taxadir, sidoo kale ka taxadir qofka aad guursanaysid, adigan isbaar qofka aad guursanaysid bar. kan ugu dambeeyo waxaan ka dhigayaa inuu qofka iska fiiriyo dentistaha. maalmahan aad ayuu magaalada ugu soo batay ama guud ahaan cariga Soomaalida in dentistayaal badan aqoon badan aan u lahayn inay ka howlgalaan magaalada ayna sameeyaan procedure uu ku faafi karo xanuunka loo yaqaan hepatitis-ka. dhakhaatiir ajaanib ayaa badanaa la keenaa wadanka kuwaasoo aqoon dheeraad aan u lahayn caafimaadka guud iyo gaar ahaaneedkan ilkaha. qaado talaalka kana taxadir nafsadaada hepatitis-ka hana faafin yuusan kugu faafin.